odayaal shir ku qabtay deegaanka Taleex oo dhawaan ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ay dabcan muran xoogan u ka taagnaa oo ku saabsan kadib markii maamulka Puntland ay qaar ka mid ah saraakiisha iyo mas'uuliyiinta Somaliland xabsiga u taxaabeen ayaa odayaasha deegaankaasi waxa ay sheegeen in Taleex ay ka tirsan tahay Somaliland isla markaana weerarkii dhacay ay ku tilmaameen in uu ahaa mid gardarro ah. wariyaheenna Maxamed Shaqale ayaa warkan waxa uu ka soo diray Laascaanood. qaar ka mid ah uqaasha odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Taleex ayaa ka hadlay in deegaankaasi ka tirsan yahay maamulka Somaliland markaana ciidamada ka joogaan waxayna ku tilmaameen weerarkii ciidamada Puntland ku qabqabteen mas'uuliyiin tirsan maamulka gobolka Sool oo ahaa mid gardarro ah kaasoo lagu doonayo in lagu abuuro colaad deegaanka ah. odayaasha iyo waxgaradka ayaa sidoo kale waxay ka hadleen in loo baahan yahay in maamulka Somaliland uu tayeeyo ciidamada ka jooga deegaankaas iyo waliba waxqabadka iyo horumarka deegaanka. waxaa dhacay gardarro ay geysteen nimanka Puntland oo u geysteen dad Somaliland oo iska soconaya oo nabadgelyo ku soconaya oo dalkooda ku soconaya oo aan dhibaato wadin. dhibaatada ay u geysteen oo ujeedadu tahay in la colaysiiyo dadkii ilaa taariikh deriska aad baan uga waxaan weeyaanin haddii aan hawshaa wax laga qaban dadka dhaawaca oo la xirxiray oo isbitaalada loo diiday oo laga ajka ah oo aan xamili karin dhulka cadaabta la geliyey ay ka mid yihiin intaa waxaan uga fadhinaa nabadgelyada iyo dadku sida uu derisu yahay iyo dhibaato nacay baan uga fadhinaa. iyaduna sidaa weeye waa degmada taariikhdeedu lagu garan karo Soomaaliya iyadoo Soomaaliya la aqoon waa degmada lagu garan karo iyadii aan Cabdulxasan silsilad iyo Cabdulxasan waa degmada lagu garan karo magaca Taleex iyo Cabdulxasan meel lagu garan karo Soomaaliya ha ahaatee haddana waxa qabad haddii la waayo waxa ahaanshuhu waxba ma sheego. intaa degmada aanu ahayn mid gaadiida mid caafimaad mid kormeer mid waxqabad midna kuma aanu helo. waxay ku tahay markaa ciidankii shalayto u dhisnaa hadduu qalabaysan yahay waxaa lama laayeen waxaa hadida kala ka dhigayo jeerka kuma uusan jirin. dhinaca kale cutubyo ka tirsan guutada 81 ee ciidanka Somaliland fadhigoodana yahay magaalada Taleex ayaa saraakiisha ciidankaas ay kula hadleen sidii ay u difaaci lahaayeen iyaga oo sheegay in ay markasta dhowrayaan darisnimada balse maamulka Puntland uu wado xadgudub iyagoo qafaashay taliyihii ciidankaasi. Maxamed Shaqale, telefishinka Universal. nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.